gudoomiyaha aad u mahadsan yahay. Waxaan halkan ku soo jeedinaynaa aragtida bulshada rayidka ee doorashooyinka ama modelka bulshada rayidka ee doorashooyinka. Arinta koowaad, nooca codbixinta qof iyo cod ama doorasho toos ah. Waxaana ku sababeynay waxay kordhisaa sharciyada dadweynaha iyadoo aan la jabin kalsoonida siyaasadeed. Tartan siyaasadeed, xisbiyo qaran oo sharci ahaan loo diiwaan geliyay. Waxaana ku sababeynaynaa waxay tartanka ka wareejinaysaa shaqsi iyo beel kaliya una dhaweynaysaa barnaamijka siyaasadeed ee mustaqbalka. Deegaan doorashada, tirada deegaan doorashooyinka iyo asteenta kuraasta ay ku jirto kuraasta Somaliland waxay u baahan yihiin go'aan siyaasadeed. Waxaan ku sababeynay waxay ilaalinaysaa xuquuqda codbixiyayaasha dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Codeynta dadweynaha, dadka u codeeyaan qof xisbi ka tirsan oo la yaqaan ama xisbi matalaya, ama in ay qofka si toos ah qofka ugu codeeyaan. Waxayna abuuraysaa jawi isfahan siyaasadeed. Tirinta codadku ha ku saleysnaato tirada kuraasta xisbi walba ama qof walba ka helay deegaan doorashadiisa. Waxayna sahlaysaa tirinta codad kasta si daahfurnaana. Matalaadda, maadaama arrimo badan ay sii jiraan, weli waxaan soo jeedinaynaa saamiga 4.5 si u sii jiro inta lagu jiro marxaladan kala guurka ah. Sidoo kalena la xaqiijiyo qoondada haweenka 30% iyo sidoo kale qoondada dadka naafada ah 5%. Waxaanu ku sababeynay waxay ilaalinaysaa dheelitirnaanta beelaha, waxayna ka hortagaysaa cabsi siyaasadeed iyo ka qaybgal loo dhan yahay. Guddiga ama maamulka doorashada, waxaan soo jeedinay guddi qaran oo madax bannaan, la isla ogol yahay, laguna soo xulay khibrad iyo habraac sharciyeysan. Waxaanu ku sababeynay waxay yareynaysaa eedeymaha faragelinta, waxayna xoojinaysaa kalsoonida natiijada. Amniga doorashada, waxaan soo jeedinay inay doorashada amnigeedu ka shaqeeyaan ciidamo boolis ah isku dhaf ah ka kala socda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka una tababaran amniga doorashada. Waxayna sahlaysaa kalsoonida iyo doorashada iyo amniga si wada ogol ah loo maamulo. Xalinta khilaafaadka doorashada, guddi madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo xalliya ama xoojiya ama tabashada doorashooyinka iyo khilaafaadka doorashooyinka ka jawaaba. Waxayna sahlaysaa in cabashooyinka doorashada ay maamulaan guddi ka madax bannaan dhinacyada tartamayo. Ugu dambeyn, arinta miisaaniyadda ama miisaaniyadda guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Miisaaniyadda iyo maamulka labada guddi waa inay noqdaan mid madax bannaan oo si buuxda u dhameystiran. Waxayna sahlaysaa madax bannaanida, hufnaanta iyo ka fogaanshaha faragelinta. Wabilaahi tawfiiq. aad iyo aad waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.